shirkan jaraa'id uu qabtay xildhibaan Saciid Xirsi Cabbaas oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelafweyn isla markaasina ah gudoomiyaha ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee magaalada Ceelafweyn ayaa waxa uu ku dadafeeyay ama uu iskaga fogeeyay eedeymo ay loo soo jeediyay kuwaas oo ay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ay dhawaan daabaceen oo kuna saabsanaa in xildhibaanku doonayo amaba uu damacsan yahay inuu ku biyo shubto amaba uu ku biiro xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo walibana sidoo kale inuu xildhibaanku iska casili doono xilka gudoomiyaha ku-xigeenimo xisbiga kulmiye ee degmada Ceelafweyn bariyahan waxa jiray warar kutirkuteena oo aan ka maqlayay warbaahinada qaarkeed sida website-ada iyo journalada kale anigu haddaan ahay xildhibaan Saciid Cabdi Cabbaas ahayna gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye waan la bilaabay Axmed Maxamed Silaanyo waan la bilaabay xisbiga insha Allah caqabado badan oo hadda iiga adagna waan la soo maray maanta oo alkii ugu wanaagsaneed aanu marayno oo aan khilaaf jirin oo aanu xisbi xaakimkiinahay oo aanu horumar badan muujinay inaan ka tago oo xisbi kala galo xaasha laygama yaabo waxaan u sheegayaa shacabka reer Soomaaliland xisbiga kulmiye anigu waa la bilaabay insha Allah waana la dhameystiran doonaa saasaan u sheegayaa kutirkuteenka iyo ninkii qanjalacsanayo ninkiina tashkiilinayo tashkiilka yeelmin maanta alxamdulillah baan joognaa wadankayaga baan wuxuu qabanaynaa madaxweynahayaga baan haysanaa kama baxayno kulmiyena isqaban maayo kulmiyo ahaanaya sidii udubna u kala tagi maayo insha Allah intaasaan u sheegnaa shacabka reer Soomaaliland sidoo kalena xildhibaanku waxa uu si ballaaran u soo dhaweeyay isla markaasina uu hambaliyay soo jarankii khilaafka xisbiga kulmiye ee dhawaan la soo gabagabeeyay gudoomiyahayaga qaaliga ah Muuse Biix iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Kaahin Axmed iyo gudidii arrinkan soo qaban qaabisay khilaaf baa soo dhaxgalay dadku way isqabtaa carab iyo labadiisa daan bay isugu dhaw isqaniinaan laakiin waxaan uga hambalyeynaya oo ilaahayna ka abaal marinaya gudidii madaxweynuhu qabtay iyo sida uu ajiibeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku aad waxaan ugu sii hambalyeynaya gudoomiyahayaga Muuse Biixi geesta kalena gudoomisada garabka haweenka xisbiga kulmiye ahna gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliland ee degmada Ceelafweyn ayaa waxay dhambaal tacsiye u direen marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland oo ay dhawaan walaasheed ku geeriyootay dalka dibadiisa anigu waa gudoomiyihii garabka haweenka xisbiga kulmiye degmada Ceelafweyn waxaan halkan uga tacsiyadeynayaa marwada koowaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marwe Amina Maxamed Jirde Amina Waris geeridii ku timi walaasheed Xawluul oo ku geeriyootay dalka Ingiriiska inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaanu ilaahay uga baryeynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo Xawluul dhammaan ehelkii qaraabada ay ka geeriyootay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantii uu ka siiyo samir iyo iimaan ilaahay iyadana waxaanu uga baryeynaa naxariista janno inuu ka waraabiyo waa geerin naxdin leh waanu la qaybsanay marwada qaranka naxdinta iyo geerida ku timi Xawluul ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo dhamaantayana samir iyo iimaan hanaga siiyo Raxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelafweyn